tiro ka tirsan culimada deegaanka ayaa soo saaray natiijo ay ka gaareen saameynta taban ama saameynta xun ee biyo-xidheenada ay ku yeeshaan adduunka iyagoo xusay in dhul ballaaran abaar ay ka dhigayaan. khubaradan deegaanka ayaa yiri 4 meelood oo meel dadka adduunyada waxaa haysata biyo yari baahsan, waxaana sabab u ah biyo-xidheenada sii badanaya ee dunida. heerka qarashgareynta iyo dhismaha mashaariicda biyo-xidheenada adduunka waxay kor u sii dhaafaysaa ilaa $2 trilyan oo dollar 10 sano ee la soo dhaafay. Tirokoobyada la sameeyay ayaa tilmaamaya ayay yiraahdeen in 23% dadka dunida ay waayeen qaybo weyn oo kamid ah ilihii ay ka heli jireen biyaha oo ay ku waayeen biyo-xidheenada la dhisay, halka biyo-xidheenada ay ka faa'iideen koox yar oo qura. arrintaas oo khatar badan ku ah nidaamka deegaanka adduunka. khubaradan ayaa farta ku fiiqaya saameynta biyo-xidheenada ay ku yeesheen dhul aad u ballaaran iyagoo tusaale u soo qaatay biyo-xidheenada laga sameeyay webiga Yellow River ee dalka Shiinaha, kaas oo markii dambe ay ka dhasheen in dhul aad u ballaaran oo markii hore biyo si fiican u heli jiray oo qalalo dhulkaas oo u badnaa waliba daafihiisa. waxa kale oo ay tusaale u soo qaateen biyo-xidheenka kale oo laga sameeyay webiga Ganges River ee dalka India, kaas oo ay ka dhasheen in dhul badan oo webiga hareerihiisa ay qalaleen. biyo-xidheen Turkigu ay ka sameeyeen webiga Ebroveth oo isagana ay ka dhasheen biyo yari deegaanada hareeraha webiga Ciraaq iyo sidoo kale Suuriya. si kastaba ha ahaatee biyo yarida dalkeena laga dareemayo sanadihii la soo dhaafay gaar ahaan webiga Shabeelle waxaa sabab u ah ayaa la dhihi karaa biyo-xidheenada dowladda Itoobiya ay korontada ka dhalinayso ee gudaha dalkeeda ay ka yagleeshay.